السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada walaalahay meel kasta adduunka joogtiin insha Allah maanta waxa sameynana cunto hindi digaag laga sameeyo yogurt laga sameynayo oo caaw sameynana waxa laga sameey doonaa insha Allah way tusi doona xabad xabad kadib way la socodontiin. cuntada sameynayno digaag waa 4 xabbo oo digaag ah waxa kale u baahan tahay yogurt nooc arabta waa qaadan kartaa waxa kale u baahan tahay xawaasho kala duwan kan waa basbaas kan waa hindida xawaashkiisa garam masala kan waa barbarooni la shiiday iyo haroodi waxa kale u baahan tahay liin dhanaan soo mirtay toon iyo sanjabiil iyo cusbo intaas la u baahan tahay. marka sida u sameeysato hadaa rabto inuu dhadhan fiican ku yeesho waxa sameey kartaa habeenka sameeyso inta ilmaha seexsan ilaa inta habeenka seexan sida subaxii marka sameeysanayso dhadhan fiican buu ku yeelanaa insha Allah. 20 daqiiqo firijeerka la gelinayaa. digaag waa shishay hadda waxa sameeyaa bas saliid meesha ku jirto waxa sameeynaya basasha ku soo diyaarsaday inta waxa ku soo diyaarsaday toon iyo sanjabiil soo shiitay marka qashaysanayna hadda basasha iyo toonta iyo sanjabiilka oo noo shiilmay waxa ku dareynaa waa barbarooni shiilnay iyo haroodi iyo garam masala hindida xawaashkeedii ku shiilaynaa kadib waxa ku dareeyaa yaayada shiilneed هذه قاعدة برعمل. إذا مهمة دمشق ومهم وين صفي عن سلش نشيد بكية نشيد وحلا هاي لبن وقرار بالله. كيف محمد لا يا يدي سلشيتي وفلفل يا حبل مربياله. يعني إذا أكود منه ومدة الساعات وجهته منه ويا نشيد كا أو بدل تشيناي. كده بقى قدر يا دي بكير مش بكير عملوا بيه بس لسه شيء تون دقيقة حد وحا قدر يا عانيه أو كريم كهاي من الدجاج يسود بتي سيدا مركي إن شاء الله إنك وحا قدر نسا 10 minute إلا يلا 8 دقيقة إلى كل هذا عنتو ونو ديار